biyaha badda gelaya biyaha roobku raxmadda ilaahay saddexdii biloodba mar bay daadaa marka ma garanayo waxa biyaha looga faa'iideysan laayahay waxay u baahan yihiin nin yar oo miyi degan oo barkad samaystay ayaa wuxuu u samaystaa si uu ugu noolaado gacan si ay barkadaasi u buuxsanto marka roobkaasi doo dadkii ilbaxa ahaa ee dawlad iyo shicibba lahaa waxaa loo baahan yahay biyaha roobka ee badda gelaya in la isugu tago oo wax laga qabsado biyaha for example waa tii dhaam xunba weyne barigii laga dhisay dhaamkaa kuwo la mid ah oo aan sidiisa oo kale ahayn ayaa loo baahan yahay in la sameeyo oo laga sameeyo weliba meelaha beeralayda ee dooxa qarkiisa ah beeraha dooxa qarkiisa ku dhow haddii dhaamamka lagu dhameeyo oo biyahaasi dabeetana ay dooxa marayaan qayb ka midii kolay wada mari maayaana ay ku leexato beeraha la beerayo way ku simi lahayd inta roobka kala da'ayo marka waxaa loo baahan yahay dawlad iyo shicib in la isu tago oo laga faa'iideeyo biyaha ilaahay roobka inooga shubay waxaan ku talin lahaa inay qorshe cad la timaado wasaaradda biyuhu oo ay ku hor kacdo shicib iyo dawladba si biyaha badda gelaya looga faa'iideysto oo ay qorshe la timaado si aynu uga faa'iideysano oo aynu waxna ku beeranno biyaha badda gelayaana kullay wada joojin kari mayna ay qayb inoo joogsato waxaan leeyahay ha la isu tago oo biyaha roobka ha laga faa'iideysto oo sidii loo joojin lahaa falowgeed ha la galo shicib iyo dawladba